السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa maanta aanu kulanay shirar ilaa 5 hore ahaa oo lagaga hadlayay fasaadka ummadda ku soo siyaadaya maalin walba oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada oo laga bilaabay salaadiinta acyaanta kala duwan ee magaalada uqaasha macallimiinta iskuulka macallimiinta quraanka culimada masaajidada ee khudabka iyo imaamkaba ah bayaankii ka soo baxay baan maanta halkan u wada fariisanay oo aan ku cadeynaa fasaadka ummadda ku soo siyaadaya hadii la iska qaban waayo in ummaddu halaagsamayso waxa kale oo intaasiba nala socday qaybaha booliska taliyaasha saldhigyada ee magaalada Boorama bayaanka waxa inoo akhri doona Maxamuud baa inoo akhri doona marka labaad ilaahay maartay haynoo gargaaro wadanka maartay hadaan u duceyno ilaahay inoo gargaaro ilaahay fasaadka haynaga qabto ilaahay hayna tuso xumaanta hayna tuso wanaagana ilaahay hayna tuso waxaan ku soo dhaweynayaa in Maxamuud inoo akhriyo bayaanka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman katiira ma ba'd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan ka akhrin doonaa bayaanka sida uu qoran yahay waxa shir weyn isugu yimiday qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama taariikhdu markay ahayd 20kii Rabiicul Awwal 1437 Hijriida waafaqsan 31 bisha 2015 shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistu ayaa waxa laga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xumaanta ku sii faafaysa bulshadeena iyagoo si gaar ah xoog u saaray arrimo ay ka mid yihiin kow khamriga oo si xad dhaaf ah soo gala laba xamaglayaasha oo batay isla markaana hablo iyo wiilalba yeeshay bilaabayna xumaan dariiqa lagu sameeyo dadkana la baadho saddex xumaanta sinada oo noocyo kala duwan ah isla joog kufsi lambar 4 aydo oo ku badatay magaalada isla markaana dhibaato caafimaad darro keenta 5 diincay iyo wixii la halmaala 6 xafladaha aroosyada oo xumaan fara badan ka dhacdo sida wiilal iyo hablo isku marayo loo soo xiray oo meeshii markaasi la isag fariisinay sida aroosyada lambar 7 guriyo laga kireeyo dadka xumaan falowga oo dadkii khamro iyo waxyaabaha qarsanaya ama xumaan sameynaya laga kireeyo shirkaasi oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga wanaag faristan horeba soo sheegnay waxa ka soo baxay guddi ka kooban taliyaasha booliska culimada uqaasha macallimiinta iyo guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista guddigan ayaa waxa ay yeesheen fadhi taariikhdu markay ahayd 7 bishii koobaad 2016 oo waafaqsan 4tii bishii Rabiic Thani 1437 Hijriida waxaana ay soo saareen baaqan arrimaha soo socda kow in dhan looga soo wada jeesto xumaanta laba in hay'adaha ay khusayso ay qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan saddex in bulshadu ku caawiso sidii ay hay'aduhu gudan lahaayeen waajibaadkooda afar in laga wacyigeliyo bulshada xumaanta 5 in uqaasho aanay erga ka gelin dambiyadan kor ku xusan isla markaana ay ka aqbalin jooyinka ay khusayso 6 in aanan la iibin xariga lagu xukumo dadka ku kaca falalkan xun ee kor ku xusan 7 in xamaglayaasha la xiro wixii gaaray daada xariga 8 in carruurta xamaglayaasha oo aan gaarin xariga boolisku soo qabto laga bilaabo 17 bisha koobaad 2016 raadiyana waalidkiisa iyo caaqilkiisa lagu wareejiyo hadii ay ka soo bixi waayaan xilkooda in iyaga tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado tamacneed waxa weeyaan markii carruurtii la soo qabto waalidkiisi oo berrida soo doonan lahaa dhigiisa caaqilkiisi
in markaasi lagu wareejiyo la yiraahdo ilmaha ummadda ka qabsada naftiisana ilaaliya haddii iyagana sawir laga qaado booliska la dhigo inta kadib hadduu qofku hawshiisa ka soo bixi waayo in tallaabo sharci waafaqsan iyagii lagu qaado lambar 9 in dawladda hoose ay wax ka qabato ayada si badanayso oo iyagoo la tashanaya culimada si shariicada waafaqsan lambar 10 in guddi xaafadeed laga sameeyo xaafadaha kala duwan ee magaalada kuwaasi oo si toos ah wax uga qabta xumaanta ka dhacda guddidaasi waxa laga sameeyaa masaajidada xaafadaha sida culimada iyo imaamyada aan kala hadalnay shirarkaasi soo horeeyay kuwaasi oo iyagu ka hawlgalaya xaafadooda wixii xumaan ka socota warbaahinta la socodsiinaya hay'adaha khusayso 12 in isla joogta la soo qabto waalidkoodana loogu yeero isla markaana la faray inay labadan qof ay isla jooga banaanka xiliyada dambe ay isku dhisaan lagana ballan qaaday in mar dambe arintaasi ayna soo noqonin isla markaana ganaax laga qaado waalidka ilmihiisa ahayn waay 12 in sheekhna aanu meherin gabadh iyadoo xafladda aroosku dhaqan xumo ka socoto sida arooraha iyo markaasi dadka dhalinyartaasi foolxumada ay ka socoto inay markaasi qabsoomin 13 in hoteeladu aanay ogolaan xafladaha dhaqan xumadu ka socoto wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi billahi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuna leeyahay wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala alithmi wal'udwan mar hadii amarka ilaahay nasiyay inagoo ummad muslima ah wixii wanaagay wadankeena jirana inaan isku caawino oo kor loo qaado wixii dib jira ee ummadda dhibaato ku hayana inaan dhinac looga soo wada jeesto sidaana alla iskula kaashado sida xadiisku baa yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam wixii munkara gacanta lagu suuliyo hadii amaarti gacanta la waayo carabka lagu suuliyo hadii carabka la kari waayo oo laga cabsado qalbiga laga nooco iimaanka halkaas ugu dambeynayso ugu hooseysa taa macnaheedu waxa weeyaan inaan isku tagno wixii xumaan ah khamri baa hadda wadankeena wareeriyay xashad baa wareerisay qaadkuna wareeriyay sigaarku intuba iyo xabagta caruurtu cabeys horta xabagta dabcan dadka iibinayay inay ka fiirsadaan baa horta aan oran lahayn waayo haduu ninka xabagta iibinaya ilmahan ka iibinayo deewaanin mukhadaraad ka iibinayo kale haduu san meel kale ka soo qaadanayaan anu ma garanayo kuwa kaboolayaasha iyo kuwa maartay faaradaha sameeyay haday ka soo qaadanayaan iyaga laftooda haday siinayaan iyo haday ka iibinayaan labaduba waa qalad على حال شركة إسسود بس عدي بشا فبراير مارس وحنا جانوري هذا تطبيق طبعا كا قيبة ديسمبر قدام بيجي بصوص عدي واحد لو سوق بجي هو بيان كالآخري فرنتي بيان كالسنة وحويان أولويات بكرة يلانا يا وكلا هرينا يا وحوجه هرينا يا مكا دق عنو ربنا وحويان إن شاء الله تعالى إن بالعروض حبك تعبته وحي ويننا مارت الدواء دم لو قاضو الله حره وحي يريرنا لو يرى ضدك مجال كجوج قرابديسا والدكيسا أديركي إيوه عاقلكيس وقعنت الله جساره تاس قدوم فربضان أو كلو مجال كل حجرا ويجران وهري لوجه هذلي سيدا مثلا بولال كالجوزين يستاهل لو وضع قيله مارت هذا مجال كوبطي ما له حافظنا للشيء ويجرنا دون النعكت الله مريو ويحيي منكر والله بابية مركا إن شاء الله تعالى أرنتاس وحن برشة جارسين إنه برشة مسؤولية كوضع صارن تهاي دولهان خاصهان عدي منكر كاس أكتيس اللي وصل ماينا جاي إنه وصل شغل هذا قبنيس بوليس كله جيسيو صدق دقنا مركا مارتاني يعني بوليس كلفتون كعطان إنه إنه مارتاني رخصوا قبطان aad baad maartay xuduurkeenna ama fadhigana aad baad ma santiin ilaahayna hayna karansiyo wixii noo dana sallallahu alayhi sayyidina maxamed wa ala alihi wasahbihi wasallam waxa weeyaan aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqaynaa hay'adaha nabadgelyada iyo xukuumadda tiri hawsha iyada ah intii xukuumadda baan ka qabanaynaa aad baan ugu mahadnaqayaa bulshada arintan ka dhaxdhacayso ee daawanaysa ee arkaysana runtii waxaan ku boorinayaa inay si degdeg ah la isku xilqaamo ودكاني ماشي جليين يهلك اللي بحريني يوم مرتدي قال هذا اللي قاله تاني واحد دعوي وابلوه وديك جوتشين
bal maadaama wixii si adag ay u fidayaan in dadkii kala saarideedu wixii la waxeeyo loo sameeyo oo booliska meesha booliska lagu kala saaro wixii daweysmeena la daweeyo wixii dawadaysa adkaatana bal waxa weeyaan qaybta dambe haddii aan wax laga qabto waxaan ku soo gunaanadayaa hadalka waxa weeyaan waxa la inooga baahan yahay inteena aqliga leh inteena cilmiga leh waxa looga baahan yahay inay intan caamaha iyo intan wax garanay wax ka qabta lagu bay inta hantida haysata ilaahay hantida u dhiibana intan bila hantida gidaarada jifta baahida gidaarada soo saartay in aragta looga baahan yahay waxaan aad iyo ugu boorinayaa waxa weeyaan in gacmaha la isqabsado hawsha ayada sida looga tago waan ogtiin abaaraha iyo waxyaabaha dhacay way noognahay muddada badan ka socda de waxaanu ma hormuuda ki garanayna waxa way wuu dhigtay ki aan garanayna de waa kan sameynaya runtii waxa weeyaan arinta ayada talaabo baa laga qaadi doonaa waxa weeyaan insha Allah dhameystirkeegana waa la iskugu iman doonaa laakiin waxa weeye haday shacbi tahay iyo haday xukuumad tahayba waqtiga dheer ee bishii googa arintii soo socotay bilgoogii waka qayb walayba qaybtaadii qabso shacbi hadaanu nahay qaybteedan qabsanayna xukuumadda hadayna qaybteena qabsan baa inagu boorinaynaa aad iyo aad baan u mahadsantiin inta bilowdan waxaan ku dardaaraya hawsha wadan waxaan ku dardaaraya waxa weeyaan de waxa wali dhameystir baa inaga doonaya in halka kaga hadna kulay kuma haboona wabillahi tawfiiq salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anagu bilaysahan kulay أول بولا سؤال قدام إنه هو عن كوكو تجربها ونقنهاي إيه مكانها بحكومة هالمقايا كل هدي لنا لو قاعد يبحي ودبتي أن اللي قدام إنه عن هذه يجر هم يا مالين عن وهجنين قبل إنه تلنا لا أركب ولا نحن صدي هرتوا إلهي مهدي حوي حبقلي سواقبه خمريلا سواقبه وحورنا سواقبه أنت أنو اللي قدام المحكمة كل كان جينه برشلونة أنت بدن وبنوجد سهرين ينو هي وقاش وحورين جرين ده حل بير هذين سيد اللي نجسي دايا هذا ما نجيب جريني وسيبه جريم وحوي يعني إمجا ويلاي مهدي كل هتي لأنه ولا سود يرجلوبي وبالشدي وحاز كسر بحي كل سمينين يكون إحنا صدين أي وإحنا لا قبنا يان وحوي أنا قبل ديار بانهاين سيدي بان مكان ديار نهاي marka anagu booliiska ka wakiila waxa weey anagu waxaan ballan qaadanaa in aan sidii awalba u qaban jiray aan u qabano sida imiga waliba sii rabtaan aan ku sii dardargelino waxa weey dhulka 3 maalmood baa la yiri maxaan ku dhahay booliiska inta la gaaray horta hordhaca sida loo qabto marka waxa weeyaan waa ilaahay mahadi anagu waxaan ballan qaadanaa in intii aan awalba wada jiray ka sii badino maxaan ku raada marada iduguna imiga nagu soo biirteen de waxa weeyaan anagu hawsheedii waan qabanana sideedaan u wadanaa saasaan u ballan qaadanaa